odayaal cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Caynaba ayaa si adag uga hadlay dhul daaqsimeed ay sheegeen in la ootay waa siday hadalka u dhigeen odayaashani ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo dhammaanba ciddii ku shaqo leh ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabtaan arrintaas waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan salaan dabadeed waxaan ka hadlaynaa dhibaato ka soo cusboonaatay gobolkan aan ka hadlayno oo saraara iyadoo ay sidaas u jirto oo markii horena wax badan laga dacwoonayay seerayaashan dadka gaari ay xidhanayaan aan nacfiga lahayn haddeerna ay soo laba kacdaysado la keenay silig waxaan ka digaynaa dhibaatada ka soo socota seerayaasha siliigga leh ooda hore leh ee hore wax looga qaban waayey qayladhaantaasuna wax weeye beeraha aafada ah ee hareena noo haystay seeraha noo haystay haddeerna nalagu soo rogay taar aanan arki ma jirin lama arag baa nalagu keenay wax lama arag layaho hooyada indhalaan ma ku ogeed buu dacnunabay ku darsata waxa naloo keenay wax lagama sheekeeya waxaanu leenahay wasiirka beeraha iyo wax allaale iyo wixii ka saaran ee dawladda u shaqeeya ee xukuumadda ee madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa waxa in laga soo gaaro nabadgelyo xumo iyo isdil iyo dhibaato waxay nagu haya waa aafadii noogu xumayd markii dambena xukun baa laga soo saaray leeyahay oo doqoyan hal la ilaaliyo marka waxa weeye majority ahaan oodii hore halkay ku dhammaatay iminka dalka ku tiilay waa la wada daaqaa wax dhibaato ahoo ka taagana ma jiro intiina dilkii iyo dhibkii iyo xoolii la leynayey waa laga raystay waxaanu leenahay oo maanta aanu ka qaylinayna cuqaash haddaanu nahay saddex wax baanu qayb u leenahay inaanu warbixin ka bixinno dalka inaanu war ka bixinno dunyadana inaanu war ka bixinno daaqa xooluu daaqayana lagu dhaqan yahay inaanu war ka bixinno saddexdaa inaanu ka hadalno xaq baanu u leenahay cidda aanu u dhiibayno u direenana waxaanu codsanaynaa midhkaa isaga ah inay noo tixgeliso ama ay naga maqasho ama faragelin ay ku soo samayso degdega yaan codsanaynaa hore meeshan beere kama jiraan waxa ka jira waa seerayaashana shakhsiyaal baa wata hadda meesha siliga lagu xidhayo waxaa ku dhex jira 86 qoys oo reer guuraad oo xoolo dhaqata oo dad waalan qaar ugu xidhanayo aan meeshaba ka guurin qaar baa afar qof waalan ugu xidhan yihiin dad dusha lagaga ooday waa taar waxaanu codsanaynaa oo dawladda ilaa madaxweynaha ilaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka beeraha wasiirka dhirta iyo daaqa iyo deegaanka dhammaan waxaanu ka codsanaynaa in la ka soo gaaro arrinkaa waa hubaysan yahay kuwa kalena waa hubaysan yihiin waa in si degdeg loo soo kala gaadhaa dawladdu hadday wax ka qaban weydo qawaacibka meesha ka dhaca iyada ayaa ka mas'uula waxaan leenahay arrintaa la sheegayaa waa arrin foolxun waa arrin naga sarraysa waa arrin daldila iyo duunyada mid walba dilaageeda waxaan leenahay hadday ilaa madaxweyne tahay iyo hadday wasiirka tahay iyo hadday waxyaqaan tahay arrintaa waa in ka soo gaadhaa waxaan leenahay raggaa wataana waa rag dibadda lacag ka soo qaatay gudaha ka soo qaatay beenbeenna waraaq ku soo salaaxday si kastaba ha ahaatee deegaankani oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Caynaba ayaa marar badan la joojiyey waana markii saddexaad uu khilaafkani soo noqnoqdo waa cali aadan dirir cali taani wararka telefishanka on cable magaalada Caynaba